السلام عليكم أحبابي ميل بأجوبتان وإذا سلامي كسو دبادة channel كيغا تكتور سجيا ما أنت موضوعا كهاليو وحو كسابسين يهي فائدوينك وموسك وليهي جيرك بن آدمك هدبا انت إنو كذكري موقال كينا ما أنت فضلا هديات كعصبتا سبسكرايب إنو صار هديات هاينا أصحاب تهوري إنو جوبتينا موقالك إنو الله كري ونسي شير كري قارك مد أصحاب تادا بإذن الله الكريم هدو أدر عليك النقضو وحان كذكرينا موضوعينا ما أنت وقصي faa'iidooyinka laga helo muuska. Muusku waxa uu nashaad iyo firfircooni siiya jirka. Cilmi baarayaal ayaa sheegay in cunista 2 xabo oo muus ah ka hor inta aadan sameynin ama qofka sameeya jimicsiga uu siiyo firfircooni iyo nashaad hadduu isticmaalo 2 xabo oo muus ah. Muuska ayaa sidoo kale faa'iido u leh caloosha sida la og yahayna muuska waxa uu ka kooban yahay maado jilcisa caloosha wuxuuna ka hortag iyo daawo u yahay cudurrada qaar ee ku dhaca caloosha. Haddaba muuska ayaa waxaa ka buuxa macdan iyo fitamiin A oo ka mid ah fitamiinada waxtarka u leh indhaha ama aragga wanaagga. Sidoo kale muuska ayaa waxaa laga helaa fitamiino badan oo ka mid ah fitamiin A-ga iyo fitamiin B-ga. Muuska ayaa ka mid ah khayraadka uu Ilaahay siiyay addoommadiisa waxa uuna Ilaahay daawo uga dhigay cudurro badan aysan dadka intooda badan aqoonin. Haddaba haddii aad ku cusub tahay channelkan Doorashajiya kusoo dhawow subscribe inoo saar muuqaalkana inoo like garay haddii aad tahay asxaabtii hore inoo la joogtayna muuqaalka like dheh una sii share garay qaar ka mid ah asxaabtaada waad ku mahadsan tahay sida wacan.